kusoo dhawaada shabakada Kacab Media haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqatay fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. muuqaalkana maanta wuxuu ku saabsan yahay maxaad ka taqaanaa fanaanada caanka Farxiyo Farxiyo Fiska taariikh ahaan. maxaa helay fanaanada oo sanadihii dambe wax heesa aysan soo qaadin. madaba in badweynta balwada fanaanada ay la degtay taasoo sabab noqotay in gabi ahaanba saaxada fanka ay ka sii baxdo. taariikh ahaan fanaanada Farxiyo Farxiyo Fiska waxay ku dhalatay magaalada Webxo oo qiyaas ahaan 60 kiiloomitir u jirta magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. fanaanada waxa ay ku soo barbaartay halka iyadoo markii dambe la keenay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Farxiyo Farxiyo Fiska waxa ay kabiir ay ka noqotay dugsi oo macalinka ahaa macalin Axmed Cadaawe kaasi oo ahaa aabaheed oo dugsi ku lahaa degmada Daynile ee gobolka Banaadir. dad yaqaan Farxiyo Fiska waxay shabakada Kacab Media ay u sheegeen in fanaanada Farxiyo Fiska ka hor inta aysan fanka soo gelin ay markii ay akhrinayso aayaadka Quraanka Kariimka codkeeda dad badan ay ku raaxaysan jireen. waa xilliga kabiirka ahayd isla markaana ay joogtay dugsiga aabaheed oo ku yaala degmada Daynile ee gobolka Banaadir. waxaa markii dambe guursaday nin sheekh ah kaas oo deganaa magaalada London ee dalka Ingiriiska oo soo doontay. Farxiyo waxa ay u ambabaxday dalka Talyaaniga iyadoona u wareegtay magaalada London ee dalka Ingiriiska markii dambe. waxaa ninkaasi u dhashay ilaa 7 cunug. Farxiyo markii ay ku batay saaxada fanka waxay kala tageen ninkii geeyay dalka Ingiriiska kadib markii Farxiyo ay gashay fanka sanadka 2010. ninka sheekha ma ogoleen in Farxiyo Fiska ay gasho fanka wuxuuna tiro dhowr jeer oo ugu digay in fanka ay gasho. Farxiyo Farxiyo Fiska ayaa ku madax adeegtay fankeeda iyadoo sii wadatay heesaheeda iyadoo gabi ahaanba ninka uu furay markii dambe. waxay guursatay ninka muusikada aad u tuma ee la yiraahdo Bashiir Hanuuniye kaas oo furay ilaa 3 jeer kadib markii Farxiyo Farxiyo Fiska ay baratay balwada. Farxiyo Fiska balwadii ayaa la tagtay waxayna aad u baratay balwada sida jaadka xashiishka khamriga. waxaana sababaha Bashiir Hanuuniye Farxiyo Fiska uu furay la sheegay in ay ahayd in Farxiyo Fiska tiro dhowr jeer oo u sheegay inay joojiso balwada. waxaana loo soo sheegay in fanaaniinka naagtiisa ay la qaybeyso isla markaana habeenno badan guriga ay ka dhaxayso. taa ayaa keentay in muddo 3 mar uu furo Bashiir Hanuuniye fanaanada caanka ah ee Farxiyo Fiska. fanaanada codka halaasiga leh ee Farxiyo Farxiyo Fiska. haddaba maxaa helay fanaanada caanka ee Farxiyo Fiska oo muddooyinkii dambe fanka ka sii daba kurmaysa. haddaba maxaa helay fanaanada caanka ah Farxiyo Farxiyo Fiska oo muddooyinkii dambe fanka iskaga sii baxaysa. arrinta ugu muhiimsan waxaa la leeyahay fanaanada waxaa ku dhacay isla markaana ay baratay balwad. taa ayaa keentay in Farxiyo Fiska fankeedii sii hormarin wayso isla markaana nolosha ay ka dhacdo. dadka xilligan yaqaana Farxiyo Fiska waxay sheegeen in fanaanada ay tahay markii ugu horeysay fanaanad cod halaasi leh laakiin muddooyinkii dambe sida balwada ay u baratay Farxiyo Fiska heesaheeda ay ka sii dhacayso isla markaana xitaa Farxiyo Fiska ay muddooyinkii dambe fankeeda aysan wax horumarina aysan ku sameyn. haddaba nolosha waxaan soo gudbin doonaa fanaaniin kale kuwaas oo nolosha ka dhacay.